beelaha Samaroon iyo Ciise ayaa ku dhawaaqa dagaal ka dhan oo Somaliland looga saarayo deegaanada Salal Saylac iyo sidoo kale gobolka Udal. qorshahan ayaa ka gadaal yimid markii uu xogeysta damaaciga ka dhanka Itoobiya ay ku doonaysa xeebaha badaha deegaanadaas ee beelahan ay si gaar u degaan kadib heshiis beneedku la galay hogaamiyaha maamulka Somaliland ee xilligan ku fashilmay xalinta arrimaha gudihiisa. Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu halgalay dab culustan iyo markii uu xabashida u saxeexay heshiis beneedkaas isagoo ka dhaxarkaya fursad argudasho ah iyo sidoo kale inuu aqoonsi Itoobiya ay siin karto. beelahan ayaa maalmihii la soo dhaafay lahaa kulamo waaweyn oo ay ka tashiyo oo dibadda banaanka iyo gudaha isugu jiro taasi ugu dambeyntii laga soo gaaray go'aano waaweyn oo halis ku ah gudaanba taliska deegaanada ee ka jiray ee beesha Isaaq ay si gaar u lahayd. Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu baaqinay si degdeg ah ciidamadiisa uga saaray deegaanadaasi kadib markii la sameeyay awoodihii ugu badnaa ee ciidanada deegaanadaasi abaabul ka dhana maamulka Somaliland ka wado. deegaanada sida gaarka xilligan ee xeebaha loo difaacayo waxa qayb ka lug haye deegaanka Sheekh Cali iyo kuwa kale oo Itoobiya maalmihii la soo dhaafay la xaqiijiyay saraakiil sirdoon oo ka socday inay la tageen ciidanka maamulka Somaliland. Samaroon iyo Ciise ayaa u diyaar garoobay dagaal ka dhan oo aad u xoogan taasina waxay horseed u noqon doontaa isku day kasta oo ay mar kale garwadeen ka ahayeen maamulka Muuse Biixi Cabdi in uu meesha ka baxo dharbaxyo culus waysan filayn in ay ku dhuftaan beelahaas oo garab ka helaya dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya. ciidamada dawladda Djibouti ayaa la xaqiijiyay dhankooda inay ka agdhow yihiin goobtaas maalmihii la soo dhaafana awoodihii ugu badnaa isugu keenta deegaanka iyadoo ka fogjigan in xuduudaha deegaanadaasi la wadaagtay Itoobiyaanka ay saameeyaan. beelahan ayaa si toos ah waxay matalaad ugu kala leeyihiin Djibouti iyo Soomaaliya waxayna hoosta ka xariiqeen inay gali doonaan mid kamid ah dagaaladii ugu adkaa guud ahaanba deegaanadeeda ay ku difaacanaysa xilligan Muuse Biixi oo muddo hore xilkiisii dhamaaday inuusan iibsan karin oo dhaqaale uusan ku gadanayn beelahaas isagoo xabashida dhulkooda ku wareejinayo. odayaasha mas'uuliyiinta kala gedisan ee dawladahan kala duwan ay ku leeyihiin beelahan ayaa ku dhawaaqa mar kale go'aan si weyn kaga nixiyay ee Somaliland horseedna u noqonaysa inuu meesha isaga baxo qorshe kasta oo ay markii hore Biixi iyo Abiy dejiyeen. dawladda federaalka ee Soomaaliya dhankeeda waxay u qorshaysay deegaanadaas oo ay qaadaysaa 3 tilaabo oo ka degdeg ah horseedna u noqon doonta inuu baaba'do waxa la yiraahdo Somaliland. waa tan koobaad in ka badan ciidamo 25,000 oo xilligan ku diyaarsan Eritrea oo 15,000 ay yihiin Soomaali tababarna ku lahaa sanadkii ugu dambeeyay deegaanadaas balse haatan ay u dhamaadeen lana xaqiijiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Eritrea inay go'aan ku gaareen in deegaanadaas si degdeg ah loo gaarsiiyo maalmaha soo aadan. waa tan labaad in lagu dhawaaqa maamulka Udal State oo hogaamiyaashooda loo diyaariyay inta badanna bulshada ka imaan doonto wixii intaasi ka dambeeyana meeshaasi lagu aasay heshiiskii dhawaan ka dhacay ee madax bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya si weyn u taabanayay. iyo qodobka saddexaad oo ah inay Somaliland oo 33 sano bulshadaasi been u sheegaysa deegaanadaasi guud ahaanteedaba laga tirtiro la isugu keenay hal beel maadaama ay lumiyaan Cayn Sanaag iyo sidoo kale Sool lagana taagay maamulka SSC Qaatumo. tani ma farxad gelinaysa Muuse Biixi waxaana halkaas ku lumaya qorshe weyn oo faa'iido badan ugu jirtay kadib markii uu beelahaasi doonayo dhulkooda inuu si gaar ah u iibsado dhaqaalahan uu la ku gala doorashada soo aadan oo inta badanba ku shubasho u muuqato. siyaasiyiinta dawladda ee kala duwan ee labada garab ee Djibouti iyo Soomaaliya ku matala deegaanadaas ayaa si cad u qaadacay isku dayga gurracan ee midnimada Soomaaliya lagu dhaawacay ee Muuse Biixi u qaatay. sidoo kale mas'uuliyiinta deegaanada Somaliland ku matala ayaa shaaca ka qaadanaysan marraba hirgali karin heshiiskaasi waxaana qayb ka ah kuwa ugu sareeyo madaxweyne ku-xigeenka uu qayb ka yahay sababna uga dhigay inaysan Itoobiya xilligan deegaanadaas oo ah kuwa magac weyn ku leh gayiga Soomaaliyeed iyo taariikhda xornimo doonka Soomaaliya ee gumaystaha la dagaalankiisa in aysan marraba hirgali karin qorshe la xiriirin Itoobiya loo gacan geliyo. si kastaba ha ahaatee markaan beelahaasi dagaalada ay ku dhawaaqeen ayaa imaanaysa iyadoo Soomaaliya heshiis buuxo oo military ee difaaca badaha ay la gashay dawladda Turkiga. saldhigyada ugu waaweyn dawladda ay Turkiga u xulatay inay ka dhisatay magaalada Saylac ee taariikhiga ah taasina ay horseed u noqon doonto in guud ahaanba ilaalinta deegaanadaas bari iyo badba ay noqoto mid dhowran lagana hortaga guud ahaanba isku dayga xabashida ay ku doonaysa mar kale in deegaanadaas ay gaaraan. xogihii ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan in beelaha Samaroon iyo Ciise ay qaateen go'aan kama dambaysa lana hubeeyay ciidamadii ugu badnaa oo loogu talagalay inay deegaanka ka dagaalamaan difaacana deegaanka marka laga soo tago ciidamada militariga ah ee dawlado badan ka socda oo maalmaha soo aadan si degdeg ah deegaanadaasi u gaari doono. dawladda Soomaaliya waxay qaaday tilaabooyin waaweyn oo diblomaasiyadeed iyo kuwa guud ee dagaal ah loogana ciribtirayo isku dayga xabashida ay ku doonayaan in bad iyo dhul Soomaaliyeed ay ku qaataan xilligan taasoo horseed u noqotay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa inay qaaladaan xoogan caalamka u diraan balse si weyn mar kale Abiy Ahmed lagu dhuftay dharbaxyo aan ka soo kabasho lahayn.
si kastaba ha ahaatee go-aanada waaweyn ee halista mar kale kasoo baxay beelaha Samaroon iyo sidoo kale Ciise ayaa markan dhabarka ka jabinaya Muuse Biixi qorshihiisa isku daygaha iyo argurashadii nacaybkeeda ay ku jirta muddada dheer. maamulka Biixi ayaa maalmihii dambe fursado waaweyn ka raadinayay muwaadiniin Soomaaliyeed ee ku geeriyootay dhanka Muqdisho iyagoo lahaa waxa ay u aari doon kuwaas oo ay u arkayeen inay xilligan bulshada ku kicin karaan. si kastaba ha ahaatee go-aanka madambaysa iyo beelaha dega gobolada Awdal, Salal iyo Saylac ay gaareen caasimadda Awdal ayaana noqonaysa magaalada Boorama. taasina waxay horseed u noqon doontaa in deegaanadaas ay ka suusho maamulka Somaliland ee Biixi uu hogaamiyo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud goorsii horeysa ayuu sheegtay in shacabka Awdal ay la dhaqmayso si lamid ah maamul goboleedyada ka jira dalka. taasina waxay horseed u noqotay walaaca ay Somaliland ka qabtay inay lumin karto deegaankaas una dadejinaysa heshiis beneedka ay la gashay maamulka Itoobiya, taasi oo mar kale ka hor imaanaysa guud ahaanba qanuunka caalamiga iyo nidaamyada xeerarka wadamada ay wax ku wadaagaan kuna dhiirigelaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inuu saxiixo. waxay ku soo korray wararka soo aadanayana ku soo gudbi doonaa xiisadaha deegaanada Saqabihi Dhexe. wararka fagaarana wada socoteen bagana YouTube ku biir saaxiibada nagu xiranna ka mid noqo. markaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ku tagay dalka Kenya magaaladiisa Nairobi, halkaas uu ka bilaabay kulamo xasaasiya. xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galaya shir looga hadlaya qaramada midoobay ee leedahay arrimaha deegaanka iyo ka hortagga ee wasaqowga dunida oo saameyn badan ku yeeshay wadamo kala gedisan iyo caalamkaba. madaxweynaha Soomaaliya ayaa halkaas ka jeedin doona khudbad xooggan, waxaana kaga soo horeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda. waxa qayb ka ah in xilligan xiisadaha gobolka ka jira ay saameyn ku yeelan karaan arrimaha deegaanka iyo xaalufintooda. sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa ifdiimi doona isku dayga gurracan ee Itoobiya mar kale ugu xaqal taagayso dhaqangelinta heshiis beneedka ay la gashay maamulka Somaliland gobolada waqooyi ee Soomaaliya, taas oo dowladda ay qaaday tilaabo kaso oo heshiiskaasi lagu baabiinayo. waxaa goobta ku sugan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo soo dhaweyn wanaagsan dhankiisa iyo bandhigyo xoogan ku sameynaya Nairobi, taas oo muujinaysa in fariin loo dirayo Soomaaliya inuu xilligan iskaashi ka heli karo military dhanka William Ruto madaxweynaha dalka Kenya. warinta guud ahaan xilligan tabintooda waa intaas. inta dib ka kulmi doonana nabadgelyo.